بسم الله الرحمن الرحيم سو دوادا شبكة sologroups.com laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku bax luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaa Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com 12 points of Facebook security tips ayamahan dambe waxa baraha social media qaasatan Facebook ku soo batay in la yiraahdo waa laga jabsaday link yaa la soo diray password yaa laga bedeshay email ka laga bedeshay dhibaato ay ugu dhacday in dadka lagu beeqsado bullying lagu sameeyo dhibaatooyin far badan ay kala kulmaan laakiin inta badan arimahaas waxa ka mas'uulaya leeyahay qofka isticmaalaha ee laga jabsaday marka waxaanu sameynay sologroups.com dhanka security-ga 12kan haddii aad raacdid lagama yaabo Facebook-gaaga in laga jabsado ama laga bedesho password-ka isla markaana email-ka laga xado marka waa laba nooc Facebook xiritaan iyo jibin ayuu kaliya xiritaanka tabcan qof wax ka qaban kara ma qof kasta ayaa laga xiri karaa sababtoo ah Facebook waxa iska leh Facebook waqtigay doonaan haddii sharciga aad jabisid way ka xiran karaan laakiin waxaanu ka hadlaynaa dhanka iyo jabinta ama jabiska iyo sida looga hortago marka haddii aad raacdid 12 points ama 12 points aan ku sameynay sologroups.com security lagama yaabo in laga jabin karo laakiin tabcan xiritaanka waxay ku xiran tahay mar walba sidaad u jabisay sharciga iyo Facebook iminkana la daawada videogan aan ka diyaarinay 12ka dhibic ee la doonayo in looga hortago in laga jabsado Facebook ugu horeyn sidaad ku aragtaan waxaanu ku jirnaa Facebook inagoo isticmaalaynaa dhanka iyo page-ka ama boga tijaabada ah ee shabakadda sologroups.com marka kan tijaabo kaliya aan ku sameynaa waxba ku soo darsanin cid friends la ma jirto cid aqbalaysa ma jirto marka waxaanu ku sameynaa tijaabooyinka noocan marka waxaan ka bilaabayaa 1 ilaa 12 fadlan isku daya in aad si toos ah u raacdaan isla markaana aad sameysaan wixii halkan aad ka aragteen ugu horeyn number 1 waa mobile phone number and recovery codes halkan ayaad tegaysaa dhanka dusha midig settings ayaad riixaysaa waxaad imaanaysaa security and login ayaad tegaysaa kadib waxaad tegaysaa dhankan iyo use a two-factor authentication waxaad leedahay edit ayaad leedahay kadib halkan ayaa la doonayaa in aad phone aad ku dartid waa extra layer security to prevent ka hortegaya dad kale in ay ku xirmaan kan ayaad riixaysaa waddanka joogtid ay ku xiranta halkan ayaa la riixayaa Soomaaliya haddaad joogtid America meeshaad doontid telefoonkeeda ayaad gashanaysaa oo adiga aad leedahay oo kan gacantaada marka halkan markaad gelisid continue ayaad leedahay setting ayuu kuu sameynayaa kadib haddii ay dhacdo in Facebook-gaaga meelan aqoonsanin oo ama uusan aqoon laga soo galo tusaale ahaan waxaad ku noolayd waddanka Mareykanka Soomaaliya ayaa tagtay ama Soomaaliya ayaa la isku dayay in laga soo jabsado Facebook-ga alert ayuu kuu soo dirayaa marka alertigu waa muhiim marka kan markii aad ku dartid kan kaliya laguma daayo waxa kaloo la sameeyaa tusaale ahaan telefoonkaaga wuxuu ahaa America ama Europe ayuu ahaa Soomaaliya ayaa tagtay ama kuma shaqeynaa ama waa kaa lumay marka sidaad ku soo ceshanaysaa waxaa lagu soo ceshanayaa recovery codes ayaa la sii qaataa mar walba markaa safraysid mar walba haddii uu kaa lumo telefoonka marka kan use these codes when you don't have your phone with you like when you're traveling xilligaa safarka tahay ama telefoonkaad haysan koodkan ayaad isticmaalaysa marka hadduu kaa xirmo ama ay dhacdo in qof kale isku dayo get codes haddii aan riixdid waxaa inta ku soo baxaya oo qarsan aan idinka qariyay 10 kood ayaa soo baxay your recovery codes ayuu leeyahay use these recovery codes to log back in if you don't have your phone with you when you're traveling marka 10kan kood oo halkan yaala ayaad waxaad ku samaynaysaa ama waad daabacaysaa saa ku hartaan print ama copy aad ku samaynaysaa meel ayaad ku keedsanaysaa kan ayaad qaadanaysaa marka wuxuu ku leeyahay koodadkii geli iyo ku leeyahay saas ayaad u isticmaalaysaa qaabkaasna waa kan ugu horeeya loo isticmaalo waxaa kaloo jirta always checking who's logged in mar walba waxaad eegtaa kan waan xirigan ku soo laabanayaa mar walba eeg qofka ku xiran halkee laga galaa waxaa laga galaa ujeeda where you are logged in halkee kaga jirtaa tusaale ahaan haddii aan ku suganahay waddanka Ingiriiska oo aan arko in looga jiro meel kale hadda London United Kingdom ayaa xilligan looga jira casharka aan sameynayo tusaale ahaan haddii aan ku arko waxaa looga jira Cadaado ama Gaalkacyo ama Kismaayo anigu inaan helno ogahay marka haddii aad aragtid kaas oo kale meel aan aqoonsan kan oo kale iPhone 6 Plus oo kale waxaan dhihi karaa halkan ayaan tegayaa log out ayaan leeyahay kan kaliya ma ahan haddii kuwa kale ay ku jiraan log out ayaa leedahay marka waad ka saaraysaa mar walba waxaa la eegaa
meesha loogu jiro ayaa la eega mararka qaarkood waxaa dhacda dadka IT-ga yaqaana in ay iska dhigaan waddanka adiga aad joogtid inay iska dhigaan marka kaasna mar walba qalbiga sii gasho waana muhiim waxaa kaloo ku leeyahay get alert about unrecognized login waa kan ood ujeedaa we let you know waxaan kuu sheegaynaa if anyone logs in haddii qof isku dayo in from device qalab aan la aqoonin tusaalahaan computer ama mobile ama browser aan la aqoonin tusaalahaan xataa haddaadan ka gelin Firefox iyo Safari oo aad ka geli jirta Internet Explorer wuu kuu sheegaya sidee lagu sameeyaa edit ayaad leedahay waxaad leedahay get alert ama iisoo sheeg when anyone logs into account from unrecognized device or browser iisoo sheeg ama alert wax iisoo dir haddii qof uu isku dayo in uu ka soo galo waxaan la aqoonsanin tusaale ahaan weligaa waxaad ka geli jirtay mobilekaaga Samsung haddii iPhone laga soo galo kale oo kusoo sheegayaa halkan ayaa la riixaa get notification email marka email ayaa lagu daraa ama waxaad leedahay hore waan ugu soo dirnay sidii aad ku arteen kii hore waxaad leedahay at another email oo mobile ayaad leedahay marka email cusub ayaa lagu daraa dadka intooda badan waxay leeyihiin emailkii passwordkiisa ayaan iloobay marka si aadan u iloobin email kale aadan iloobin ma email qof aad ku kalsoon tahay ayaa halkan la gashtaa kadibna aad ayaa la yidhahdaa ama at another numberka xataa waa lagu dari karaa phone number kale waa lagu dari karaa marka si security-ga uu adkaado qaabkan kan waa loo sameeyaa strong password waa muhiim password inaad iska ilaalisid dhalashada ilmahaaga ninkaaga iyo adiga oo magacyadooda la isku daray caruurtaada iyo hooyo waan ku jeclahay iyo hooyo macaan iyo waxaasoo kale si fudud ayaa loogu samayn karaa tabcan password adagna inaad ilowda ayaa la diidayaa su'aalahan waxaan isticmaalnaa dhanka iyo solo groups waxaan isticmaalnaa security adag laakiin idin dhihi maayo passwordadan isticmaala sababtoo passwordadan aad ayaa loo ilooba haddii aan rahdo generate security password kan cid xasuusan karta haba yaraatee ma jirto laakiin inta badan passwordada ugu wanaagsan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah combination wax la yidhaahdo tusaale ahaan haddii aan idhaahdo h aan capital letter ka dhigo tusaale ahaan hooyo ayaan doonaya ka dhigo waxaan ka dhigayaa 00 ayaan ka dhigayaa kanna small letter ayaan ka dhigayaa kan waxaan ka dhigayaa kan laakiin fadlan ha isticmaalin password kan qoraya sababtoo ah dadka daawanaya waxa laga yaabaa in isla markii ay yiraahdaan kan ayaa qof isticmaalay marka numberadana 1 2 3 inta la dhihi lahaa waxa laga bilaabaa 3 2 1 iyo haddana capital letter iyo waxyaalaha lagu xijiya aadan ilaawin sidaan oo kale ah laakiin kan ha isticmaalin fadlan haddaad isticmaashaan idiga ka mas'uula passwordada adag way fiican yihiin secure password generator aan sameynay scriptigan laakiin si toos ayaa loo ilooba marka ha isticmaalin waxaad isticmaashaa password mar walba uu ku jiro shaqal dheer iyo shaqal gaab iyo uu ku jiro number uu ku jiro kaasna aad ayuu muhiim u yahay choose 3 to 4 friends kuu soo celin karaa dad aad ku kalsoon tahay choose ayuu ku leeyahay friends to contact you if you get logged hadduu kaa xirmo waddan kale aad joogtid ama dhibaatay kugu dhacdo isticmaal ayuu leeyahay asxaab adiga ku kalsoon tahay laakiin waa muhiim dad aad ku kalsoon tahay laakiin hadday noqoto qof aadan ku kalsoonayn waa dhib edit ayaad leedahay choose friends marka halkan you trust contacts should make sure if you before you giving you security codes waa inaad hubisaa choose ayaad leedahay halkan ayaad riixaysaa markii aad riixdid magacooda halkan ayaad ka raadinaysaa 3 ilaa 5 ayaa lagu ogol yahay marka haddii ay dhacdo inay kaa xiranto ama lagaa jabsado ama wax lagaa bedesho qofkan waxaad leedahay fadlan waan geli la'ahay adigaa ah qof aan aaminay ee iisoo fur laakiin waa inuu ahaadaa qof adiga aad aamini kartid oo saaxiib ah oo aad u wanaagsan waa inuu ahaadaa haddii kale qof aad isku hadlayn karin ama Facebook aad ka bartay waxaa laga yaabaa in dhibaato ay kaaga timaado always use your name tusaale ahaan anigoo kale haddii kan laga xiro oo Facebook yiraahdo waxaanu doonaynaa username-kaaga ama magacaaga oo rasmigaan doonaynaa waa igu qoran yahay aad ujeedaan Cabdinaasir Ismaaciil ayaa ku qoran baasaboorkayga iyo documentkayga wax walba waxaa ku qoran marka Cabdinaasir Ismaaciil si fudud ayaan kusoo xeshan karaa laakiin hadday ku qoran tahay wiilka ugu quruxda badan Soomaaliya ama gabadha ugu shidan haddii baasaboor gabar shidan iyo wiil shidan haddii aad haysatid nasiibka Facebook ka yeeli maayo wuxuu leeyahay documenti dhib ma leh haddii wax extra ay sii raacsan yihiin tusaale ahaan Cabdinaasir Ismaaciil sola haddii aan ku qoro waxba dhib ma leh waa ii soo celinaya sababtoo inta hore unbay eegayaan marka waxaa muhiima magacaaga haddii aad doonaysid inuu kuu soo laabto waa magacaaga in aad ku soo celisaa tan kale ugu muhiimsan waxay tahay never click link marar badan ayaan ka sheekay haddii aan riixo halkan waxaa halkan ii soo diray casharkii hore aan sameynay Cabdinaasir Ismaaciil ayaa wuxuu ii soo diray kale account-ka caadiga aan leeyahay wuxuu ii soo diray link waad ujeedaa linkigii jabsiga ayuu ahaa kan oo aan ka hadalnay haddii link qof uu kuu soo diro aad taqaanid ama aad aqoonin weligaa lama riixo linkiga haddii aad riixdid wuxuu ku geynayaa meel kale ayuu ku geynayaa waad ujeedaa Facebook ben ayuu ku geynayaa waad gelinaysaa username and password isla markii waa lagaa jabsanaya waa lagaa xadaya marka never a click a link waa muhiim wax walboo dhaca link qof kuu soo diray ama ha yaqaana ama yuu aqoonin lama taabto lamana maaragtay sameeyo maxaa la yidhahdaa click lama sameeyo kaasna aad ayuu muhiim u yahay
kan sideedaad never share your details even husband or saaxiib weligaa detailskaaga usernamekaaga iyo passwordkaaga qof hala qaybsan xitaa waxaa la yidhi odaygaaga ama xaaskaaga ama gabar aad saaxiib la tahay ama wiil aad saaxiib la tahay sababtoo ah xaalku markuu xumaado way kugu soo laabanaysaa sheekadan qofkaas waxyaabihii halkan kugu jiray ayuu eegayaa dadkaad la xiriiri jirtay videos xagga kugu xaraysnaa ayuu eegayaa waa kaa xadaya dhibaata kaa soo gaaraysa marka waa never share qofka hadduu ku yidhaahdo waan isjecelnahay waxaas hadduu ku yidhaahdo dad badan bay ku dhacday gabdho badan bay ku dhacday marka hala share gareen waxaad tidhahdaa kula qaybsan maayo facebook inuu qaas ii yahay marka waxyaalo waxaa jirta bani aadamka iga qaas ay yihiin marka lama share gareeyo detailskaaga ama macluumaadkaaga xitaa maarata your husband odaygaaga ama xaaskaaga ama gabadhaad isjeceshihiin wax kasta laisku aamina laakiin kan aduu gooni kuu yahay hadday sheekadu xumaato way kugu soo laabanaysaa marka qaababka facebook ay kaaga xirto waxaa ka mid ah qof ayaa wuxuu soo gelinaya copyright music ama copyright video ayuu soo gelinayaa copyrightka si automatic ayaa lagaaga xiraya disable laga dhigayaa haddii marar badan aad kusoo celisidna gebi ahaanba waa lagaa tuurayaa facebooka marka qaabka laysaga ilaaliya waxay tahay musican maraykanka ah inta badan haddii aad soo gelisid xitaa adigoo gaari ku dhex jira oo dhegaysanaya radio ka dhegaysanaya live ku jira haddii musicaas ay maqlaan copyright ay ku dacweynayaan waxaa lagaa xirayaa hal bil ayaa lagaa xiraya lagu ganaaxaya mar labaad haddii lagugu qabto waxaa dhexaysa in gebi ahaan lagaa saaro marka copyright iyo wax qof kale iska leeyahay gebi ahaan ha soo gelin waa lagugu dacweynaya waana muhiim marka sharciga u degsan kan tobanaad waa facebook ee bullying beeqsiga iyo aflagaadada isku dirka iyo argagixisada waxyaalahaasna aad ayaa indhaha loogu haya tusaale ahaan qof mayd meel yaala iyo qof isqarxinaya ama promotion oo maaragtay xayeysiin loo samaynayo argagixiso waxyaalahaas oo kale kaasna facebook waa laysaga xiraa disable hal bil kadibna waqtiyo badan ayuu qaataa marka waxaanu ka hadlayna iminka xiritaanka qof controli kala male qof kasta ayaa laga xiri karaa don't pretend someone else facebook will find out and close forever ha iska dhigin qof kale tusaale ahaan haddii aan facebook aan samayso aan yidhahdo jaamac hebel baa la yidhahdaa ama heblaayo hebel baa la yidhahdaa oo dadkana meesha aan ka soo xumeeyo facebook wuxuu isticmaalaa algorithm ayuu isticmaalaa wuxuu ogaanayaa meesha laga soo geliyo qofka wuxuu yahay sawirada videos waxyaalahaas oo dhan wuu kaa xirayaa marka dad waxaa laga yaabaa members badan haysto oo isle qof kale iska dhig oo ku qaraabto si toos ayaa looga xirayaa wuxuu u baahan yahay keliya dhowr qofood inay maarata dacwad u dirto facebook ay tirahdo qofkan hebel maahan way eegayaan marka loo diro waxay sheegayaan algorithm ayay eegayaan qaabka koodka php uu qoran yahay isla markii akaanka waa laga xiraya mar dambana usoo laaban maayo waayo waxyaalaha community standardka looga xiro dadka waxaa ka mid ah pretending someone else ama qof kale aanu isaga ahayn ayuu iska dhigaya kan ugu dambeeya ee 12 waa muhiim report oo blog qofkii message link ah kugu soo dira ama bullying kugu sameeya tusaale ahaan shakhsigan markuu saan igu soo diray cabdinaasir ismaaciil kama helin linkeedu ii soo diro waxaan sameyn halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay blog message gabi ahaan wax message iima soo diri karo laakiin blog kama dhigin facebooka laakiin qofkaas hadduu ku noqdo bully hadduu kugu soocayo facebooka ha u jawaabin waayo dadka bullyinga oo biiqsiga wada waxyaalaha ay ku nool yihiin waa in loo jawaabaa qofkaas uu ka xanaaqa ama ka xanuunsada waxaa loo sameeyaa geeskaa la tagaa halkan ayaa la tagaa qofkaas marka la furo meeshiisa waxaa la sameeya tusaale ahaan haddii aan rabo cabdinaasir ismaaciil oo kale inaan blog ka dhiga haddii aan rabo halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay blog ayaan leeyahay cabdinaasir ismaaciil meeshuuna ku dhammaaday is done sheekadiis meesha ku dhammaatay marka laakiin haddii aad u jawaabtid oo aad tustid oo aad ku baridid qofka aad tidhaahdid waxaan aad bay dhibsaday qofka halaas ayuu doonaya waa bullying dadka iyagoo yaryar ayaa waxaa lagu sameeyey beeqsi bully way ku soo koreen marka hadda waxay doonayaan aarsiga bullyga ayay doonayaan marka waxaa loo sameeya waa la ignore gareeyaa blogaa la saaraa sheekada meeshay ku dhammaatay marka waxaan filayaa in aad ula dhacdeen facebooka 12 point of security oo aad si toos uga daawanaysaan shabakada solargroups.com fadlan kusoo biira shabakada solargroups.com waxay leedahay wall iyada u gooni ayay leedahay halkan haddii aad tagtaan waxaad ku qoraysaan solar groups haddii aad ku qortaan solar groups waa kan calaamadan ayuu wataa saan markaad u furtaan waxaad ku arkaysaan meesha ugu horeysa saan ayaad ku arkaysaan marka waxaa ku jira ilaa iyo 17,000 qofood ayaa memberka ah arday iyo dad kale waxaanu soo gelinaa mar walba teknolojiyada ugu dambeysa securityga waxbarashada luqadda ingiriiska waxaan soo gelinaa softwarada ugu dambeeya wax walba kaliya technology siyaasad iyo waxyaalo kuma jirto tusaale ahaan qofkan ayaa hadda soo galay wuxuu soo geliyay kan lama ogeyn waxaa lagu sameeyaa halkan ayaanu riixnaa delete and remove mar dambe loo ogolaan maayo sababtoo waa ka mamnuuc saa ku aragtaan waa u dhammaatay waa history Mr. Cabdullaahi Sheekh Cabdi waan ka xumahay maaragtay waxaan technology shaqaan ku leen waa kaas inta kale
technology software ugu dambeeyay sida Adobe Premiere way socotaa su'aalo la soo weydiiyaa computerka duu ka halaysan yahay haddii ay dhacdo waa kan Ingiriiska fake login kan ka hadalna hadda ka hor waxyaabaha dhan intaan oo dhan waa technology waxa lagu bartaa security wax marka ku soo biira waa maaragtay ku soo biira si aad u aragtaan wax walba waxaad ku qoraysaan Solar Groups iyasaan ugu qoraysaan saa ku aragtaan isla markii automatic dadkan ayaa ku soo biiray hadda maalintii average waxa ku soo biirta 200 qof ayaa ku soo biirta marka horaan kaga darna qof walba accept laakiin qofkii wax ka baxsan soo galiya ama siyaasad soo galiya ama arima kala soo galiya isla markii automatic block ayaa laga dhigaa waa maasantihiin wixii macluumaad ah mar walba info@solargroups.com ayaa la soo xiriir kartaan anigoo ah Macalin Cabdinaasir inta wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh